ixdar an takuuna min adaalimiin iska ilaali qof yahow inaad daalimiinta ka mid noqoto dulmigu wuxuu u qaybsamaa dhowr qaybood dulmu lcabdi lirabbih qofku inuu rabbigii dulmiyo oo sidee rabbigii u dulminayaa inuu shirki u sameeyo ilaahay oo cibaadadiisii uu alle mutaystay in keligii la siiyo inuu cid ku lamaaneeyo yaa bunaya laa tushrik billaah ina ashirka la dulmun cadiim dulmiga waxaa ka mida dulmu lcabdi linafsih qofku inuu naftiisa dulmiyo naftaada inaad dulmiso iska ilaali waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah waman yatacadda xuduud allahi faulaa'ika hum aldaalimuun ilaahay waajibaad buu ku saaray wax loogu dhowaado wuxuu ugu jecel yahay wixii uu addoomihiisa ku farad yeelo ku waajibiyey inaad marka naftaadii dayacdo waajibaadkii iyo faraa'idii ilaahay ku saaray lagugu taag waayo taariku salaad aad noqoto oo aad masoome aan soomayn noqoto oo muxaramaadkii u dareerto naftaada ha dulmin iska ilaali waxaa ka mid a dulmiga dulmu lcabdi ligayrih qofku inuu dulmiyo dadka kale oo aan isaga ahayn dadka kale inuu dulmiyo wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun wattaquu dulma faina adulma dulumaatun yowma alqiyaamah nebigu wuxuu lehy sal alla alay wasalam warooy dulmiga iska ilaaliya waa mugdiyo iyo madowyo maalinta aakhira dulmigu ha dulminina dadka yaa cibaadii innii xaramtu nafsii aulma innii xaramtu adulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu saasuu alla leeya subxaana wa tacaala iska jir inaad noqoto daalimiinta mid ka mid ah qodobka afaraad ee dulmiga waa dulmu lcabdi lilxayawaan qofku inuu xayawaanka dulmiyo mayeedhaanka ah haddii uu milkigiisa ku jiro inuu hawl iyo shaqo iyo tacab ku dilo oo baadka iyo biyahana ku yareeyo inuu dhangadda iyo uga turin xayawaanka oo isagoo xawdh yar iyo mid yar ku garaaci kara inuu xayawaankii si xun u dilo inuu gaajaysiiyo inuu dhul abaara oo waxba neefku aanu ka goynayn xoolaha inuu ku celceliyo isagoo awoodi kara meel tigaad dhaanta meesha uu ku hayo inuu xoolaha u kaxeeyo iska ilaali xayawaanka inaad dulmiso inaad wax ku samayso disho dhibaato u geysato iska ilaali qodobka koowaad marka aynu tilmaamayno ixdar an takuuna min adaalimiin iska ilaali inaad daalimiinta ka mid noqoto